ciidanka Soomaaliya waxa ay khibrad u leeyihiin la dagaalamka Itoobiya. Inkastoo Itoobiya dagaal walba oo Soomaali la gasho guuldaro ay kaga soo laabin jirtay xilli walba, ilaa garab ay kaga helaan wadamo kale si ay ugu guuleystaan Soomaaliya. Burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Bare, xilligan oo hadda la joogo, labada dal Soomaaliya iyo Itoobiya yaa awood badan xagga ciidan ahaan. Ka hor inta aanan bilaabin muuqaalka, waxaa idinka codsanayaa in muuqaalkan alaag saartaan siina sheergaraysaan, sidoo kale nagu soo biir adigoo maasan. Burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Bare, waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa awoodaha ciidan labada dal, taageerada dibadda iyo saamaynta diblomaasiyadda labada dal. Soomaaliya waxa ay taageero ay ka heshaa dalal kale ah Turkiga, Mareykanka iyo Midowga Yurub, kuwaasoo oo ka taageera dhinacyada tababarada, qalabka iyo howlgallada nabad ilaalinta. Itoobiya waxa ay leedahay saameyn diblomaasiyadeed oo xooggan. Waxa ay xiriir la leedahay dalalka ugu waaweyn sida Shiinaha, Ruushka. Dadka ku nool Itoobiya waxaa lagu qiyaasaa 126 milyan oo qof, halka Soomaaliya dadkooda lagu qiyaasaa inay yihiin 18 milyan oo qof. Miisaaniyadda difaaca ee Soomaaliya waxa ay ku bixisaa qiimo gaaraya $30 milyan, iyadoo caawinaad iyo dhaqaale ka helaysa dowlado ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Turkiga, halka Itoobiya $538 milyan ay ku bixiso miisaaniyadda difaaca. Kaalmaha ay ku kala jiraan awoodaha ciidan ee adduunka, Soomaaliya waxa ay ka soo gashay kaalinta 142. Waxaa laga yaabaa sannadyada soo socda inay wax iska beddelaan, halka Itoobiya kaalinta 49aad ay ka soo gashay, iyadoo lagu tiriyo inay tahay awoodda Afrika. Laakiin marka loo barbardhigo kuma aado Soomaaliya. Taariikhda ayaa xusta mar walba. Milatariga Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 17,000 oo askari. Waxaa laga yaabaa inay intaas ka sii badato, halka milatariga Itoobiya iyagana tiradooda ay tahay 150,000 oo milatari. Labada dal ma laha ciidamo u kayd ah oo beddel u noqda milatariga. Soomaaliya ayaana samaysan weli nuclear wax baabi'iya, waxaana la mid ah Itoobiya oo aanan isku dayin inay samaystaan taangiyada dagaalka. Soomaaliya ma haysato. Inkastoo cunuqabateynka hubka laga qaaday, waxaa laga yaabaa inay soo iibsato, halka Itoobiya 676 taangiyo ay haystaan. Baabuurta gaashaaman, Soomaaliya waxa ay haystaan 80, halka Itoobiya 405 ay haystaan. Madaafiicda iskooda u dhaca, Soomaaliya weli maysan yeelan, halka Itoobiya iyagana ay haystaan 183. Diyaaradaha dagaalka, Soomaaliya ma haystaan, balse waxa ay leeyihiin 3 helikabtar kuwa dagaalka ah, halka Itoobiya ay haystaan 89 diyaaradood. Diyaaradaha miyiga, Soomaaliya ma haystaan, halka Itoobiya ay ka haystaan 23 miig. Diyaaradaha xamuulka ee ciidanka qaada, labada dal mid waxa ay ka haystaan 9, laakiin Soomaaliya weli maysan yeelan. Maraakiibta dagaalka, labada dal ayaana weli yeelan maraakiibtaas, inkastoo Itoobiya aysan lahayn bad maraakiibtaas u isticmaasha. Soomaaliya ma noqon doontaa waddan gacanta ay u soo horsadaan Itoobiyaanka. Ma laga yaabaa Soomaaliya inay cashar kale oo lama ilaawaan ay u dhigto Itoobiya?